haddaad dhimato marbay geeridu nolosha dhaantahay dhadhan ma leh aadmigu wax lagu dhaliilaaye wariye qadar 4 beriyo xirnaay dulmi sharci darro waa lagu xadgudbay waana la handaday waana gula dhibaateeyey laakiin ma aqbalin ma yeelin mana qaadan doono waxaan mar kasta u hadlaynaa dhibanaha qofka dhiban qofka dulban waxaa isku ilaali doonaa sharciga waxaana ilaali doona sharcigaas maku xadgudbi doono dowladda mana qaadan doona xadgudub waxaa u sheegayaa qof kastoo wariyaa waxaa haysataa awood sharciga ku ilaalinayo adna sharciga isku ilaalin ha qaadan ha aqbalin ha cabsan ha yeelin in lagu dhahaa aqbal wix lagu sheegaa 4 beri muxuu ku xirnaa 4 beri dulmiyuu ku xirnaa sharci daro ku xirnaa muxuu ku xirnaa kuma xirneen wax sharci ah annaga laakiin waa adkaysanaynaa waa dulqaadanaynaa mar kasto aan soo baxay maxaa dhacaya ma taqaanin hooyo Soomaaliyeed WhatsApp-ka ii soo duceynaysa aabba Soomaaliyeed ii soo duceynay muxuu ilaahay ilaahay idin garab joogo anaa idin garab joogo waa mahadsantihiin kama aamusnina codka shacabka dulman mana ka aamusi doono haddii qofkeena ugu dambeeya la xiro xataa wallaahi ma ka aamusayno waxaan gudbinaynaa codka qofka dhibanaha ah waxaan sheegaynaa waxa qarsoon dowladda waa ilaalinaynaa annaga ma nihin argagaxiso annaga waxaan nahay wariyaal saxaafad ayaan nahay xor ayaan nahay waxaana ka hadlaynaa xaqiiqada wuxuu u yahay dowladda wayna ilaalinaysaa annaga dowladda kama soo horjeedin waa aqbalsannahay waa ajiibsannahay waxaan u mahadcelinaynaa maxkamadda gobolka banaadir sida quruxda badan ee u qaaday sida noogu ilaalisay xaqayna sida cadaaladda leh ee noogu qabatay waxaa idiin sheegayaa qof kastoo iga dambeeyo wariye kastoo wax u sheegayaa adiga waxaa tahay qofka maanta runta sheegi lahay adi haddaa aamusto yaa runta sheegayo haddii lagu cabsi geliyo haddii lagu xiro xariga wax yar waay wax yar lagu xiraa awooddan la isku sheegayo hantidan inoogu faanayaan xooggan inoogu faanayaan maaha mid sii jiraya maaha waxaa ogaataan ninka maanta adig ku xira beri wuxuu noqon doonaa nin shacaba xilkan waa meerto waa la qaadaa waa la bedelaa dowladda way bedelmaysaa annaga mar kasta waxaan u hadlaynaa dowladda hadday wanaag sheegto waa ku ammaanaynaa wixii jiro waa sheegaynaa sidoo kale waxaa rabaa inuu mahad celiyo markii dhibaatadana gaartay walaalaha na garabka istaagay wariyaasha dadka aana aamusin dadka aan baqan culays kastoo jiro dhib kasta oo jiro dadkana soo xiriirinayay oo aan leenahay awoodda aan leenahay waa ayaga marka waa mahadsantihiin sidoo kale waxaa u macdilinayaa ururka SJS oo kafaalad qaaday damaanad qaaday qabtay qareenkii sida adag ee quruxda badanna shaqadaan u qabtay waa mahadsantihiin awoodda aan leenahay waa adinka wariyaasha adinka awood noo ah adinka idin aaminsanahay adinka wax idinku nahnay xaqana waa mar kasta xaqa waa ku hadlaynaa waana mahadsantihiin guulaysta insha Allah